buundadii Baardheere oo labada dhinacba biyihii ay u baxeen. suuqan halkan ku yaalo waxa loo yaqaanaa suuq yare guud ahaan gedigan oo dhan way ka baxeen iyo farqii weynaa ee magaalada dhex marayay oo asagana sidoo kale biyihii bixiyay. guud ahaan marka waxa lagu qiyaasay dadka ka qaxay ama biyaha meesha ku jira ka barakacay ilaa dad gaarayo ilaa 5,000 oo qof gaarayo ayaa ku barakacay. ilaa haddana waxaa la sheegayaa in degmada Luuq iyo Doolow biyo aad u fara badan ay soo dhaafeen. xaqiiqadii dhinac markii laga fiiriyo waa barwaaqo oo aad ay u sugayeen ummadda Soomaaliyeed oo ay ku diirsadeen. abaaro fara badan oo la soo maray Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu dad uga saaray. dhinac kalena khasaare ayaa ma aragtay ka muuqato oo sababtoo ah nicmo kasta nusqaanteeda ay leedahay baa la yiraahdaa. marka guud ahaan shacabkan halkan hadda aan joogno iyo meelo kale oo aan soo marnayba ku barakacay waxay u baahan yihiin garab istaag in loo sameeyo. socodkii magaaladii maanta xaqiiqadii waa aad bay u adag tahay. doomo ma haystaan. waxaa lagu gudbaa fuustooyin la isku xirxiray oo ma aragtay dad ay sameeyeen baa hadda lagu gudbaa dhinaca galbeed oo dhan magaalada fuustooyinkaas loo isticmaala. haddana waxaa la filayaa in roobab iyo biyo ka yimid ilaa Itoobiya ay halkaan ay soo mari doonaan taas oo laga yaabo in ay sii kordhiso barakaca iyo biyaha inay goobo ganacsi iyo goobo deegaan intaba ay saameyn ku yeeshaan. xaqiiqadii intii tabar ahayd ka hortag bulshada reer Baardheere iyo maamulka intii tabar waa la sameeyay. faraq weyn oo magaaladan ku barakac jirtay oo magaalada dhex marayay waxa laga qabtay shaqo aad u adag oo lagu banaynayay gudaha iyo meelihii aasimay iyo guryaha ku dhow in ma aragtay la habeeyo oo buur weyn la saaro. taas badbaado fara badan bay noqotay oo dad badan baa ku badbaaday laakiin kuma filno. waxaan rabnaa marka in ummadan Soomaaliyeed oo halka ku dhibaataysan waxay u baahan yihiin garab istaag. waxay u baahan yihiin wax walba oo dad biyo ku waxyeeloobay in ay helaan ay xaq u lahaayeen bay u baahan yihiin. arintaas marka barnaamijyada ayaga ah dawladaha iyo hay'adaha barnaamijka quseeyo iyo dawlad goboleedka Jubbaland iyo dawladda dhexe intaba shacabka Soomaaliyeed oo biyaha ku dhibaataysan waxay u baahan yihiin garab istaag. xalay ilaa 7 saac 8 saac habeenimo ayaa waxaan ka soo saaraynay dadka qayb ka mid ah guriyihii ay ka dhaqaaqi waayeen oo laga soo badbaadinayay oo laga soo saarayay. marka dabcan meeshan waxa ka muuqato waa wax la wada arkayo oo inoo muuqdo. insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa jawaabo fiican oo rasmi ah inay ka soo bixi doonto. ilaa iyo hadda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكان ودنا دبار كرمي. أكان حل جرا وأكان سوق وسنير من جرا وسوق بديني. مركب واضح كتا ناس يقولوا ما واجد برواني أو لكن سبيها وبدين. ثاني نقول درا تقول كذا. يا؟ نروح هنا. مركب ماشي عند واسوق. بيها هذا سوق كستوى مثلا هذا تكون مفضل وأنا ماشي سنسال وعبيلة يا كبر مرباغان أو روتين يا مرحبا كشغل صوت ويجي وحكى صوت حياة markaas ku socodiyeen waa kana marka boondada saaran tahay marka waa shaqadeena caadiga ah waqtigaas marka shaqada socon inaan halkaan dhex marno anaga kaas asaas ahu basbanay anaga wuxuu u badan yihiin marka waa dareemi kartaa meesha marka maraayo qarka webiga halkaas marka meesha yar oo waxaas naga geedahaas arkaysan webiga yar noqotay webiga waa ka soo bixinaya webiga waa ka soo bixinaya roob markuu maadana kor iyo buuraha iyo kiiga imaado webiga u socday kuwii u socdayna waa iska hor imaanayaan kuwii webiga soo baxay iyo kuwii kor ka imaaday oo webiga u socdo
iyo webiga buuxsimo soo baxay waa iska hor imaanaya marka waa iska dhaqanka anaga de waa iska alxamdulillaah ilaahuna waa nagu badbaadiyaa intii ilaahay u qadaro un baa hadana iska waxyeelaysaa marka ma yaraan karta de biyo badan oo kor ka imaaday iyo kuwii oo webiga u socdo iyo kuwii webiga oo intuu buuxsamay soo celiya iska hor imaadaan waxay sababi karaan waa dareemi kartaa marka kana saan waay marka alxamdulillaah webiga markuu buuxsamo oo xaafadaha xaggooda soo aado kuwii xaafadaha xaggooda ka imaado kor ilaa xaafadaha korkooda ka imaadana iska hor imaadaan waa markaas waxaa ka dhalanayso in xaafadii ay galaan burbur hanti dhimasho dad ka dhalanaya marka waa caynkan